يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu u gudbaynaa fasalka riyooyinka qaybtiisii labaad. maanta ay taariikhdu tahay shawaal 6deeda sanadka 1441. taariikhda kalena ay ku beegan tahay 28 bishii shanaad 2020. طبعا riyooyinka waxaa inoo fasiraya sheekheena weyn caalimka ah sheekh xasan ibraahim ciise oo waqtigiisa inoo huro. ilaahay ha xafide, waxaan leenahay ilaahay ha ku xafido sheekh. waa qaybteenii labaad fasirka riyooyinka. sheekh aad baan kusoo dhaweynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. saa-ilka labaad wuxuu leeyahay sheekh, waxaan rabaa inaa ii fasirtid riyadan. sheekh, waxaan ku riyooday familka isoo koriyey oo idilaya riyada dhexdeeda ilaa 3 mar oo kala duwan. markasta albaabka qolkayga ayaan xirtaa, markaas aan soo toosaa. waxaa weeye markay riyoonayso mise markuu riyoonayo saa-ilkay asoo riyoonayo ay wuxuu ku riyoonaya inuu albaabka xirayo. markuu albaabkaasi xiro ayuu soo kacayaa, uu caadi buu usoo toosayaa. riyadaasina 3 mar bay igu soo laabatay uu leeyahay. markii afaraadna waxaan ku riyooday qof aanan aqoon oo nin ah oo mindi dhuunta iga goynayo. جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. إلهي بقى مهد إسكال سبحانه وتعالى مركل سوكي كلمي برنامجك فسراد ريوينك. قبردان أما قف كان كريوضي فملكي سو كوريي أنا عاك فهمينا فملكي طلعي إنسان أهين لكن أي سو كوريين كوريين لوجو جي يصير نقطبة دلها ayaga haddana 3 mar ay riyada aragto markii albaabka xirato ay soo kacdo. marka afaraadna nin aynan garanaynin dhunta midi ka geliyay. horta waxaa lagu fasiraa riyo wanaagsan waa khayraad fara badan oo qofka uu gaarayo ilaahay idinkii, risqi waasica oo rabbi siinayo insha allah. qofkaas dadka la joogay ama dadka arrintaas sameynaya ya cadow ku ah, xasad bay ku yihiin. markii albaabka ka xiratay riyada ka soo kacdana waa naji ay ka najoonaysay, ka badbaadayso makrigooda iyo dhagartooda iyo keydka ay markaa wataan. waxaa kaloo lagu sii fasiraa mashaakilaad fara badan oo jira inuu ilaahay ka badbaadin doono insha allahu tacaala. nacam. بارك الله فيك شيخ. سائلك أنا لواد حلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ. يولالها الله يدين حفيد الشيخ. وحن كل رياضي أنيجا يدمر تربنا لما أنتود عرب أنيجا لك أفريكان. أيا وحاول جوني وحين وقود جرني قل كويا لما البنان وين oo leh geeda har macaan leh. kadib waxaa banaanka soo buuxsamay gaaro tiro aad u badan oo madow iyo cadaan leh. anigana waxaan furay albaabkii qolka. kadib waxaan soo gelinay gaaladii mid ayaynu u qalaynay. ayadana haddaan soo qabana hal kale oo gaal ah anagoo gowracayna. kadib yani waxaynu soo qabanaynay mid waaxid baynu soo qabanaynay. mid baa lasoo gelinaya waa la qalaya, mid baa lasoo gelinaya waa la qalaya. saas bay u fasirantahay riyadani. saa-ilka wuxuu ku dhamaystiray. kadib waxaa nagula dhahay waa furashadii qudus, meesha aan gaalada aynu ku hayno meel aad iyo aad u weyn oo bannaan, hal qolna ku yaala ayay ahayd. بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا waxaan ku fasiraynaa ama se ku cabiraynaa wal xaqiiq ilaahay agtiisa ahaatay inay soo islaami doonaan dad fara badan oo cadow islaam ah ilaahay idinkii. waana rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu islaamku badan doono, cizi iyo guulna uu heli doono. marka saasay markaa noqonaysaa insha allahu tacaala. nacam. saa-ilkeena saddexaad wuxuu leeyahay sheekh, riyadaydu waxay tahay waa 2 riyo, hal qof oo 2 riyo soo dhiibto weeye. saddexaad waxaan ku riyooday buu yiri sheekh anigoo tuuga dad i dhacaan la
waxaan ku riyooday anigoo tuuga i dhici rabaan, saas buu kala jeedaa, ama ay i dili rabaan, balse waan la dagaalayaa. Guriga ayay doonayaan inay soo galaan, laakiin waan la dagaalayaa oo waan iska celinayaa, albaabka ayaanan ka xirtaa. waxay tusaysaa inay mar walba tahay wariyadiisii koowaad. bismi illaahi raxmaani raxiim. haddii qof raga uu yahay waxaa dhici karta inuu dad ganacsi iyo shirko iyo wax isku leeyihiin, dadkaasna ay rabaan inay dagaan, inay jiraan. marka aada isaga digtoonow, dikriga ilaahay badso subxaana wa tacaala. qof dumar haddii ay tahay waxaa suuragala dangal inay imaan doonto, amase naag lala guursaday ama naag lala guursanayo, macnaha tuug rabo in hooyadan gurigeeda uu soo galo, in wax la qaybsado ama inuu wax ka qaato. marka naag noocaas oo kale ah inay markaa jirto, iyadana ay la dagaalaysa, ay diidan tahay. waxaa kaloo suuragal ah qeybta saddexaad oo lagu fasiri karo shiqaaq, ayada iyo ninkeeda. hadduu nin yahay asaga iyo naagtiisa khilaaf soo dhex gelaya, haddii riyadu soo noqnoqotana ilaahay ma qadaree ilaa iyo heer furiin ah in markaa lagu gaari doono. taasaa markaa lagu fasiraa insha allahu tacala. laakiin adkaarta ilaahay iyo dikriga aada u badsa adigana insha allah. nacam, maasha allah, sheekh ilaaha ku barakeeyo. saa-ilkeena afaraad waa isla su-aashii koowaad qofkii watay weeye. riyada kale sheekh waxay leedahay, waxaan ku riyooda anigoo uur leh oo dhalaya. bismi illahi raxmaan raxiim. uurka haddii qofku nin ay tahay qof oo aan la qabin, saan hore usoo tilmaanay, waa mashaakil iyo sacab baa la yidhaahdaa. ilan uurka ilah wuxuu ku tilmaamay kurhan, wawadacatu kurha. saa darteed haddii aabba la-aan uu yahay oo ayadoo naagtii la qabin ay kusii riyooto iyadoo uur leh, waa mashaakil adduun iyo imtixaanaad iyo dhibaatooyin fara badan. weli waxaan kusii waanina qofka adkaarta inuu aada iyo aad usii badsada insha allahu tacaala, dikriga ilaahayna uu laazimo. nacam, maasha allah, sheekh ilaahay ha ku barakeeyo. sidoo kale saa-ilkeena shanaad wuxuu leeyahay, sheekh waxaan ku riyooday anigoo dhagaxaan laygu soo tuurayo, iyo in dad badan oo baahan la igu leeyahay, dadkan caawi oy quudi, khaasatanna ay madow la igu leeyahay, ay madow oo aada u dhibaysan la igu leeyahay, eygan caawi. bismi illahi raxmaani raxiim. riyo wanaagsan waayo, cardi iyo bandhig baa la yidhaahdaa. dhagxaanta markay yaryar yihiin, qofka saa loogu soo tuuro, waa dad wax u sheeganaya, waa dad arrin ka raba, waa dad u baahan. sida riyada qeybteeda dambe ay tilmaamayso, ey madow oo si qaas ahaana loo tilmaamayo inuu gaajeysan yahay, inuu jiro qof u dhow asaga oo dhibaato weyn qaba, mashaakil aada iyo aada u dhib badan haysta, suu uga fakada ama uga baxana oo markaa la-yahay. waa qeybta dambe. qeybta dhexe waxay fasiraysaa ummadda, dadka leeyahay caawi. waa qeybta hore, waa bandhiga ay dadka usoo bandhiganayaan mashaakilaadkooda iyo dhibaatooyinkooda. qofku hadduu qof wanaagsan yahay, ahlu salaad yahay, ahlu diin yahay, qofka riyada arkay, saasaa loogu fasiraa. qeyb kala dhacda baa la yiri oo dhinac kale usii dhici karta. qofku hadduu qof xun yahay, taariku salaad yahay, ahlu diin aan ahayn, waxaa lagu fasiraa ayadana dunuub iyo dembiyaali iyo macaasi qofka uu galahayo, sida ilaahay tilmaamay, linursila calayhim xijaaratan min tiin oo kale. laakiin qof fiican hadduu yahay, wanaagsanoo ahlu diin ah, waa dadka wanaaga u tilmaamaya ama u arkaya ama ku tuhmayo iyo waxyaabaha dhibaatooyinka haystaa ay usoo cardinayaan. ilan dhibka marka qofka loo sheegto waa dhagax lagu dhuftay oo kale, saasuu markaa noqonaya insha allahu tacaala. waana riyo hagaagsan. nacam, maasha allah, sheekh ilaahi ha ku barakeeyo. su-aasheena lixaad waxay leedahay, assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. aad baan u salaamayaa sheekh xasan ibraahim ciise iyo walaalkii sheekh maahir. waxaan rabaa in la ii fasiro riyadan haddii ilaahay idmo. habeenkii markaan seexdo, waa waxmalaynaya riyada mar hore bay ahayd, sida muqadimaadka hore loogu soo qoray. habeenkii markaan seexday, waxaa albaabka banaanka hore laga soo galo guriga igu soo jebiyey dumar xoog waaweyn oo la igu soo shabahay dumar aan garanayo. waxayna siteen faashash waaweyn. albaabkii dhinaciisa banaanka xigta waxay ku dhigeen calaamada kiristaanka oo ay ku sameeyeen faasaskii ay ku garaacayeen. kadib markii ay soo jebiyeen waxay dhaheen, albaabkaad naga xiratay, laba mar bay ku celiyey.
kadib aniga waan soo baxay waxaan ku dhahay alla bisinka ma ana albaabka idinka xidhay oo albaabkayga idinka soo furi waayey aniga iyo caruurteyda guriga ayaan ku mashquulsaneen idma aan maqlin iga raali ahaada kadib hadalkii baan sii watay anigoo u eg qof warwarsan oo waxaan dhahay alla albaabkii maxaad iga jabiseen balaayahayga balyaa iga hagaajinayo cafwan oo isku dartay balyaa iga hagaajinayo idinka miyaa lacagta iga bixinaya kadibna waxba hadal ah dhegta qof baa hadal dheg ii saaray oo wuxuu igu yiri waxaad ku sugan tahay xaq baad ku sugan tahay intuu i dhahay wuxuuna igu yiri wuxuuna ii akhriyay bay tiri cafwan su-aashay xawal isku dhex qalday dhegta ayuu hadal ii saaray wuxuuna igu yiri xaq baad ku sugan tahay wuxuuna ii akhriyay suuratulbaqara aayadda 5 ee ugu horeysa aayadda 5 ee kana hadla sifaadka mu'miniinta kadib waan soo toosay ilaahayna waan xusay habeenkii afaraad waxaan ku riyooday riyotii ku dhow oo rag ah wejigooduna garanayo la igu soo matalay iyagoo guriga xoog kusoo geli raba aan booliis wacay anigoo wacay aan baqayo kadibna waan baraarugay shaydaankana waan iska naaray kadib ilaa iyo mar walba akhriyo maalin walba waan akhriyaa baqara iyo alcimraan intaan ka gaaro ama waan khatimaa alxamdulilah caafimaad taamana waan helay jazaakum allahu khayr بسم الله الرحمن الرحيم عافمات كان الله كو زياديو سانو كلا فيعنا قف مركو waxyaaba riyac cabsi la arko inuu quraanka iyo dhikriga ilaahay aad u badsado aad bay u fiican tahay si ilaahay uga caafiyo waxyaabaha dhibaatooyinka ah ee hurdada markaa ka khasa insha Allah taala arinta laba nin baa suuragal quraan akhrintan iyo dhigta khayrka lagu sheegay oo waxyaabo bashaara ah oo lagu tilmaamayo ku socoshada diinta ilaahay inaad ku dadaasho waa koow midda xigta dhanka kalena waxay ka noqon kartaa ilaan dadka madmadow ee albaabka soo jabinay oo haddana kugu dhaa albaabkii baad naga xiratay fiiri haddii ay jiraan xaq xaggaaga jira oo bani aadam iska leeyahay diin ha ahaato waxaad qaadatay ha noqdo waxaad ogaal u qaadatay waxaadan ogaal u qaadanin in ay jiraan xaq dad kale leeyahay oo xaggaaga markaa soo jira taana waa lagu fasiraa ilaan marka dumar ay yimideen haddana rag ay kusoo darsameen waa suuragal rag iyo dumar isla jira ama isku jira in xuquuqaadkaas ay markaa ayagu leeyihiin dhankaagana uu soo jira xaqa ayagiina ay dalbanayaan xaqoodiisa ay markaa u heli lahaayeen tukaan aad wax ka qaadatay oo aad ilowday aad ka guurtay ninkii lahaa baxay wax un ha ahaadee bal taariikhdaada iyo qisadaada gadaal ugu noqo soo xasuuso taana way ku fasiraan wayna noqon kartaa insha Allah nacam sheekh ilaahay ku barakeeyo ilaahayna ku xafido saailkeena toddobaad wuxuu leeyahay sheekh assalaamu calaykum waxaan u baahanahay fasiraada riyada in laygu caawiyo qofka hadduu ku riyoodo aabihii oo dhimanaya خلاص بس انت كليه ان شاء الله عمري ديري هدي الهي يراهدو قفك اسغو نول hadii geeri loogu riyoodo kale waliba dhimashada hadii ay noqotay leeyihiin culimada oo riyada qisaas oo kale ama waa la dilay ama waa la qisaasay walakum fil qisaasi hayaat macna waa hayaat waa nolol marka insha Allah cumri dheeri baa lagu fasiraa ilaahay idinkii nacam sheekh barakallahu fiik riyadeena sideedaad waxay leedahay assalaamu calaykum riyada waa sidani haweenkii ramadaanka uu marigay 27 ayay iqabsatay qofna ma u sheegin ilaah ku xafido waxay riyadan igu timid hooyo oo xawd cayl biyo ku jirta waxaynu isla soconay aniga iyo aabe iyo 3 qof oo wajiyadooda la iga qariyay hooyada way dhimatay la xawd cayl bay ku dhex jirtay way dhimatay Muuse soo qoray waxaan isdhahnay waan nasanayna baynu isdhahnay ceelkii ayaan imaanay hooyo iyo walaalkeyda xaafadda ugu weyn ayaa ceelkii ku jireen walaalkey ayaa nagu yiri soo dhawaada biyaha caba kadib biyaha ayaynu cabnay biyuhu waxay ahaayeen kuwo aan laga dareemaynin mise aan laga dhargaynin kadib salaada waqtigeeda ayaa la gaaray aniga ayaa salaada tujiyay salaada markii aan ka baxay wajiga ayaa iftiin iga baxay
aabbo iyo hooyo iyo walaalkayda ayaa igala yaabeen, kadibna waxay dhaheen allahu akbar. aniga naxdin ayaa i qabatay, kadib waxaan soo booday oo hurdada ayaan kasoo kacay. min fadlika iga jaahil bixi. بسم الله الرحمن الرحيم. ريه بشارة له واي سيدي ذا حوت مركل إلى هذا ورزق إيو برواقة إيو خير reerka riyadana waxay ku timaaday maalinta 27 Ramadaanka. ما شاء الله وكسي في عن تهيبة مركا تاسي كنت ماذا إنا أعطيناك الكوثر كوثر كسيسا وخير فربضا مركا إن شاء الله تعالى تاسنا تمني تاذك لحدنا إنه سيدا إمهيو oo khayrkan iyo waxaan barakadan hadii Ilaahay idin sakhiro sida imis waxa tilmaamaya salaada lagu gadaal tukaday way shukriga waxay kamid tahay waxyaabaha nimcada lagu dabro marka khayr iyo nimca bishaaraysta salaadii asii dukasay kasii dara nuur ba hadan marka yimid waa riya aydo dhawada bishaara insha Allah ta'ala bashir biidhnillah. sheekh sa'ilkani waa su'aaliyadani sagaalaad. sa'ilkani wuxuu leeyahay walaal su-aashayda waxaa weeye sirriyadaydu suu u qoray aabahay ilaahay ha u naxariistay ayaa dhintay, waqti ayaana laga joogaa. markasta oo aan arrin ila soo gudboonaata waxaan ku riyoodaa isaga oo ila talinayo. marka riyadaasi maxay noqon kartaa? ma niyadayda waxaa iska dhaadhicinaysa mise wax kale ayaa jiro? waan ku wareeray. bismillaahir rahmaanir rahiim. qofka aad ku riyoonayso waa qof dhintay. waxaan arinta arkayso waxa dhici karta inuu sala socodinba waana macquul. marka waa iska bishaarooyin riyooyinka rasuulka sallallahu alayhi wasallam muqaddimada hore ku tilmaanayba lahumul bushra fil hayati dunya waxa lagu fasiraa baa la yiri aayada waa riyo saalixa ah oo qofka uu arko uu ku riyoodo ama loogu riyoodo taa marka waa lagu fasiraa. marka waa arin xagaaga ah hadii mashaakilaad ku qabsado oo dhibaatooyin ay ku timaado qof fiican ama aabba oo kula talinay aad aragto macnaha waa bishaaro qalbiga aku dagahaya. marka waa suuragal inay bishaaro tahay taasaanan u rajaynayna insha Allah ta'ala. hadda kor waxa ii yimid masaajidka iigu yimid wiil iyo gabar walaala ah. waxay dhaheen gabadhii ayaa riyootay. ya salaam. waxay ku riyootay aabbo oo yimid, aabihiina waa dhintay, aabbo oo u yimid yiri iyo wiilkii inuu riyooday inay gabadha riyootay walaalay ahaayeen. marka masaajidkay soo galeen marka waxay yiraahdeen waxaan ku riyoonay ama gabadha ay ku riyootay aabbo xalay noo yimid wuxuu noo sheegay arintu waa dheereed guriga saas ah ninka meesha jooga arinta adiga tusaale ahaan. ya salaam. aabbo wuxuu nagu yiriyay dhaheen Sheekh Xasan u taga. Sheekh Xasan u taga waa labadooda isla socda. ya salaam. masaajidkana ugu taga. masjid Ramadan. Allah akbar. arintan hadda aan idin sheegayna kala tashada. naam. riyadan ay idin fasir. riyadii ay ku riyoodeen buu yiri riyadan Sheekh Xasan Ibrahim Ciise u taga ee kala tashada. masaajidkana ugu taga. naam. kala tashada hana idin sheego macnaheedu sida ay yihiin. Allah. marka riyooyinka saas oo kale way iska yimaadaan aabbo dhinta inuu ku yimaado waa iska bishaaro ilmihi حزني بقى هاي مرق بقى هيسا ما أبي هذا أصاب حي يمد لكن والله قلبي قبول جنيا إن شاء الله تعالى. نعم ما شاء الله شيخ إلهي أكو بركة يو سائل كنا تبنات سرية دنا تبنات وحلية هاي. السلام عليكم شيخ وحن كل رياضة أنيقو هيستعنوا بير أو سنة حتى جارين أو أنا قاعد علي بيحس نجاري إسلا صارنا هاي لكن وجهي جيس ما جرناي كدي بحافظة أيو إكياني مركو حافظة إكياني بو إسو فيري مركز بان وجهي جيس أركي نوان وفرحي كدي بهرددي بان كسوكعي أنا جنا ملا إيجورسنين أيضا لما جورسنين يقف لجورسنين جزاك الله شيخ. رأس صوت المعنى قفكي وحكود على الريو أنا لجورسن امتحانات يدباتو محنة iyo mashaakilaad waaye ilaahay anaga hayo subhanahu wa ta'ala wixii dib ah gabadhan markuu waxay tilmaamaysaa imtixaanaadkaas ay mari doonto ka gadaalna ay ku farxi doonto waa ilaahay ba ka bixin doona insha Allah ta'ala waa dib yusri ka dambeynaa insha Allah biidhnillah sheekh ilaahay ku barakeeyo su'aasheena koob iyo tobanaad ana rajaynayo su'aalaha la soo tiray su'aasha ugu dambayso sheekh markaan seexdo wax culays ayaa korka iga soo koro waa koob iyo tobanaad su'aasheenu sheekh markaan seexdo wax culus ayaa kor iga soo koro
mana iska dejin karo. haddii aan damco inaan taabto aan fiiriyo wuxuu yahay, waxaan taabanayaa nin madaxiisa oo kale. haddaan hoos u dhaadhaco aan damco inaan qoortiisa iyo gacmihiisa aan eego, waa uu baaba'aya. baarak allah fiik. bismillahi rahmaani rahiim. gabadha riyada ku riyootay culayska sidiisaba waa labo. midna waa mid qofka asaga dareema oo riyadii hurdada lagu celiyo oo sariirta lagu celiyo oo shayaadiin iyo waxyaaba noocaas oo kala noqda ama jin. midna waa mid qofka isaga culays uu haayo ama dusha ka saaran yahay uu wado oo kale inuu ku riyoodo. culayska asaga qofka uu wado ee uu xambaarsan yahay waxaa lagu fasiraa inta badan ziyaado cumri ah ama cumri dheer. wuxuu u dulqaatay u adkaysanayaa tacabkii iyo mashaakilaadka adduunkii waxyaabaha noocaas oo kale ah waa mid. haddii ayse tahay laakiin midda kale hadda aan tilmaanay hurdada lagu celinayo, qof ku celinayo bay dareentay gabadhi inay fiirisay taabato, madax nin bay taabatay, hoos marka loo sii dhaadhacana wajigii iyo gacmihii iyo farihii iyo waa baaba'aya. taas hadday tahay waxaa suuragal ah rag horay intay usoo doonteen rafdada diiday, weliba laga yaabo ay ceyrisay, macnaa ninkii wuu yimid kadib uu baaba'ay soo maha. marka intaasna waa suuragal oo waa dhici karta riyada. marka mashaakilaadkaas oo kale markay yimaadaan, matal haddaan dib ugu noqono midda celitaanka ah oo lagu celinayo, waxaa iska dhici karta cadow inuu jiro. rasuulka sal allahu alayhi wasalam nin baa u yimid, wuxuu u sheegay riyo uu ku riyooday. riyadii riyo qaab daran bay ahayd. rasuulku wuxuu yidhi dadka ha u sheegin lacibka iyo cayaarta shaydaanku uu ku ciyaaray hurdadaada. mar qof waa yimaadaa, shaydaanku wuu imaanayaa, jini wuu imaanayaa, wuu cusleynayaa, dhibaato fara badan. marka waxaan ula dardaarmaynaa dikriga ilaahay inay badsato. riyi saasu si dhib badan ma aha. waa diiditaanka ninkaas ay diiday haddii uu jiro gabar la qabana ay tahay. haddii rafdiga ay diiday weliba ragga marka allaala markay intay kusoo doontaan aad diidid, hadal xunna aad kula hadashid, shooda ku raacaysa. micnaha yani maxaan kugu falayaa inteen mar dambe aysan yeelin waryaa ku guursan jiray adigoo kale oo kale iyo waxyaabo la mid ah. yani hadalla qofku niyad jabinayo qalbigiisa ku dhacaya. aywa ma sha Allah sheekh kartaa. marka aad baa ugu duceynaynaa insha Allah taala. ma sha Allah sheekh, ilaahay ha barakeeyo. sheekh su'aalahan way dhamaadeen, laakiin waxaan rabaa inaan wax yar oo kooban mise kelmadooyin yar oo kooban oo su'aalo yaryarna ku jira inaan ku weydiiyo. dadka badankooda hor dadku way baqaan baan malaynaya. qofku markuu soo dirsado su'aal oo kale wuxuu isleeyahay niyow su'aashani ambay su'aal kaan naxinayso kugu noqotaa, amay waxaan lagugu jawaabaa ama lagugu soo qayliyaa hasamay ninkani maxaad u sameeyay, adiga kan sameeyay camal. ugu horeyn dadka riyooyinka soo dirsan maxaad kula talin lahayd sheekh? bismillahi raxmaani raxiim. horeysaan u tilmaanay oo kale riyadu hadday xun tahay, inkastoo dadku ay jecel riyadu xun lafteeda in loo fasiro. aywa midaas ayaa u wanaagsan qofku, li'annahu warwar baa galayo, waswaas baa galayo. qaarkoodu niyadooda waxay iska dhaadhicinayaan. wadaad baan arkay aniga aan saaxiibanahay, wadaad adii iska dhalinyar, wiil iska dhalinyar uu ahaa. wuxuu yidhi niyahow aan riyaan ku riyooday, inaan kuu dhiibaa rabaa aan sheekh xasanku igu geysid, laakiin waxaan ka baqayaa riyadaasi inay riyo xun ila noqoto beri kamaan. kadib wuxuu kusoo gabagabeeyay hadalkiisa inuu yiraahdo waxaan iska niyeystaa in riyo caadi iskaga timaado ay tahay, laakiin qalbigii ma degayo maadaama ilaa loo fasiro oo la yiraahdo saas ay noqonaysaa. ya salaam. marka sheekh maxaan ugu talin lahayd? bismillahi raxmaani raxiim. marka ugu horeysa riyada qaarna sidii loo arkay loogu fasiraayo dhacdaa, qaarna bilcagsi bay ku timaadaa. Soomaalida waxay dhihi jireen haddaad ku riyooto aroos geeri waaye waxbaa dhimanaya. ya salaam. haddaad dhimasho ku riyootana aroos waaye way dhahaan. nin aad iyo aad riyada u fasiri jiro dadka hore kamid oo caalim ahaa yaa nin u yimid, markaas waxaan ku riyooday xalay anoo aadaamaya. markaas wuxuu yidhi xajkaad aadi doontaa. ya salaam. waxyar kadib iyo sanada kadib xajkii u aaday ninkii. xajkii uu tagay. nin kale u yimid wuxuu yidhi anoo aadaamaya ku riyooday. tug baa noqonaysaa, waxaadaysa gacanta laga goynaya. nacam. sidii dhacdo gacanta laga goynaya. ma sha Allah. sheekh waxaa la yidhi maxaa dhacay oo waa isku aadaane inaad u fursato. marka qofkan waa loo fiiriyaa salaaxiisa iyo xumaantiisa. ninkan nin xun buu ila ahaaday buu yiri. thumma adana mu'adhin ayatuha alciir
inakum la saariquun Ya salaam. kana waa aadaan waxaan u fasiray wejigiisa waa ila wanaagsanaa nin saalix buu ekaa وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي marka inaan laga nixin riyada الله in oo qofka haddii uu wax loogu fasiro xataa ay xun tahay ilaahay uu ka magan galo kadibna istikfaartiis uu badsado kadaa dhibi maysa insha allah نعم dadka intooda badan waxay yiraahdaan sheekh ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu shay kuu qoray waa uu qoray isbedeli maayaan waxba dhici maayo oo qaarkoodana waxay yiraahdaan ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi udcuunii astajib lakum bacduhum dadka waxay aaminsan yihiin shayga keliya tiri karo waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku qoray inuu yahay ducada bilmithaal qofku markuu ku ducaysan ilaahay cimri dheer iyo cibaado suuban isii haddii 5 sano ay u qoran ilaahay subxaanahu wa tacaala uu awoodo inuu uga dhigo 20 sano liajli ducadiisa dadka qaarkoodna waxay yiraahdaan haddaan duceysto haddii kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qoray meeshiisa ma dhaafaan marka anagoo ku jirna weli barnaamijkii riyooyinka riyadaada hadday lacala xumaatay ay noqotay riyadaada inay kan dhici karto waraada badso lagu yiri bal inoo sharax inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo naxariisan karo sida aad u sheegto oo kale waaye ilaahay subxaanahu wa tacaala bariyaha wuxuu ka dhigay waxyaabaha wax taqayura ama bedela cabdullahi ibn cumar waxaa la yiri markuu tawaafayo wuxuu dhihi jiray ilaahayow haddaad ahlu naar iyo shaqaawnimo ii qortay ilaw iga tirtir ya salaam waxaa igu bedeshaa ahlu janna igu bedel waa yamxu allahu maa yashaa wayuthbit wacindahu umulkitaab aayaddaas u akrinaya wuxuu doon ilaahay wuu tiraa wuxuu doonana wuu sugaa wacindahu umulkitaab marka waxaa kaloo suuragal ah qofka marka matalan riyaa ku riyooday oo naxdin leh oo dhib ah in ilaahay qalbigiisa intuu u dejiyo looga dhigaba faraj iyo waxa uu ku duceystay wixii xumaa wanaag looga tiro qofku marka 40 sano ay u qorneed uu yiraahdo ilaahay 60 iga dhig waxa dhici karta in 40kii barakada la geliyo macna wixii aan la tirin laakiin soo u duceystay looga dhigo 60 sano baraka uu heli lahaa ama barakadeeda in 40 loo geliyo 40 loogu waxay marka labada waa suuragal labadana waa bishaaro labadana waa wixii ilaahay laga bixiyay sheekh su'aasheena ugu dambayso sheekh dhanka dhalinyarada aniga ragga ma ka hadlaya ragga ma hadlaya dhanka dhalinyarta alaasha dhalinyarta waxaad haminaysaa aad rajaynaysaa aad ku ducaysanaysaa gabar yar oo diin leh akhlaaq leh inaad guursatid kadib waxaad ku riyootay adigoo gabadhii guursaday oo waliba ma aragtay riyadii iyo farxadii adigoo leh maalmaha kamid in qalbigaaga ay ka baxday aad ma aragtay habeen mise maalintaas aad ku riyoon aadan ku seexanin maalintaas fikirkaaga mashquul iyo shaqooyin waxba iska jireen habeenkii markaad seexatay aad ku riyootay adigoo saqrax maray inaad ku riyootay adigoo gabadhii guursaday gabadhii oo baari ku noqotay gabadhii oo wanaagsanaatay gabar yar oo qurux badan oo diin leh akhlaaq leh waalidiin fiican ka dhalatay rajadii ahaminaysay laakiin maalintaasi iyo usbuucyadaasi laga yaabo in qalbigaaga aysan soo gelin riyadaas sheekh adiga ku mahadsan maxaad inoogu fasiri kartaa anaga hadaan u hadlo dhalinyarta waxaan dhihi lahaa horta mar kasta qalbiga gashta qof wanaagsan waxyaabahan kale aad ku dardaraysaa quruxnaato saan hana qaato timida dheerdheeraato oo kan waxaa iska dhaafa xaqiiqdii halkaa idiin sheego guurka sidiisaba waxa waaye nolol ugu fiican xayaata zawjiya qof markuu ku jiro xayaata aad iyo aad u fiican waa hadda kor waxaan maqlayaa ama su-aal ma ahayd ma aqaan gabar gubatay oo su-aalihii baynu ku keenay qaybteennii saddexaad qaybteennii saddexaad bay ku jirtay saa'iilkii wuxuu lahaa gabar baan isjeclayn ballan baa naga dhexayday gabadhii kadib way gubatay maasha allah saas marka taasna way jirtaa ninkaa wuu ka tegey muxuu raadinayaa qurux badan wuxuu raadinayaa timihii dhabarka u jooga nin hadda kor ii yimid xasan waxaan rabaa gabar inaan guursado gabar fiican oo ahlu diin haddii aka joogaan ama dugsiga iyo meelaha ay joogaan waa u baahnaan lahaa maxaa soomaalidu waa iska dhib badan yihiin maxaa shuruud ku ah qabiilka maxaa jeceshahay maxaasaana wuxuu iga bilaabay timaheeda iyo ayada inayna isla soo kicin macnaa way jiiftaa soo xirta inay soo kacdo ayada markay soo kacdo oy fadhiisato weli inay timaheeda sariirta dheeraan darteed macnaha marka ani waxaan ka ogahay baad ugu jawaabay inay sariirta sii saaran yihiin ayada iyo timaheeda hadday isla soo kacaan macnaa gaagaaban yihiin timi ama yaryihiin waxay yihiin buu ula jeedaa ma rabo
Cool. marka ma aqaan meel hantiis ku dambaysa waa iska ceyriyey marka dhalinyarada nooca ama riyada noocaas oo kale ah oo qofku uusan ku tamaninaynin qalbigiisa ku jirin maanta uusan ku waswaasaynin wariyooyinka taxqiiqa ah waaye wariyooyinka inta badan la rajeeyo inay dhacaan insha allahu tacaala آمين آمين شيخ إلهي إنه رميه إن شاء الله بارك الله فيك شيخ إلهي كو بركيه والله وحين أوجيسينينا سؤالها مشت كسر درسان كردان إني يهين إني تهاي جيميل كمس إيميل كعفوا نو قرن شيخ حسن إبراهيم عيسى لغة إنجليش كأ sidoo kale youtube commentana waa kusoo qori kartaa waynu fiirinaa waynu nadanaynaa sidoo kale waxaynu leenahay page facebook ku qoran sheekh xasan ibraahim ciise dhanka english ahaan loo qorayo ilaahay idin barakeeyo insha allah waxaynu idin soo wadnaa barnaamijyo fara badan aynu rajeynayno sheekha inuu inooga farxin doono ay ka mid tahay arrimaha bulshada iyo fasiraada riyooyinka aynu sii wadi doono su-aalaha iyo jawaabaha aynu sii wadi doono ilaa heer aynu ka gaarno biidn illaahi ilaahayna ha idin barakeeyo dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sheekh ilaahay ha kugu barakeeyo aad ayaan kaga mahad celinaya jazakum allah khayr insha allah insha allah asalaamu calaykum